habeen qura lagu laayay intaasoo boqola boorama been buu sheegay ilaahay og yahay inaan been sheegay ilaahay og yahay laakiin wadaadkaas waxaan leeyahay allah soo hanuuniyo waa qoladii fujad tagtay idin sheegi jiray fujadii baa ka hadlinaysa aniga ma aha anu saaxibu dami baan ahay dhiig baa iga maqan walaalkay baa la dilay walaashii oo uur la dilay seedigay baa la dilay kuwan adeerka waa la dilay boqolaal baa iga maqan ina ka hargeysa jooga sidoo walaalkii u raadiyaa oo xalaal soo foqaanan mamnuuc leega dhiga anoo waliba dawladii ayagu la dagaalameen ahayn waliba salaadina laguma tukan inta soo meedan idin sheegayo janaasada cid kuma tukan darbi walba laba qof baa cid ku kala rogayso wala iska dhaafayeen hanuunta inta noo dhow qof baa ku dhex aasan hanuunta halka duulka ay ku ciyaaran maar atalabada saddex nin baa ku aasan idan la ku teedo idan ku ma jirto talabada qadalka soo mid baa ku jira geeda adiga madaxdii wadanka joogaysay meeyarkii iyo reerkiisa dhowr iyo 10 qof baa ku jira halka geeda xoolaha ee laga dul qeylmay uu kii tacliinta haystay baahir xasan dalka habeenkii la dilay isna meelaha ku aasay alaqsashadii meelahaas sir way hada marka been buu wadaad ku sheegaya waa marin baa sheegay mise been baan idin sheegay aniga maxamed ka qaynaysiinaya anu walaalka iyo walaasha iyo qaraabadooda iyo muslimkii la leeyay waan ka xuma hadday Soomaaliya saamaxdeen way saamaxdeen baan nidhi haddii sanin walba la faqfaqanayo ka ugu wafad badan baana وانا صوفقي ما الله صوفقي مغعانتنا وان ترين دوننا كل وان ديوان قلنا عالم كانوا درينا عالم كانوا درينا انا برقاتنا ايه اذن كانوا وحيد كمان ربو كوان الدولة كبكتين عابدانا وحا كمان ربو عنه لكن دولة عدالة ما لغا ربا وانا مدحوينها يا مدحوين كي يكوان وحفظك ياي قبورها بورميه الى دريه الى لوي عد كبوحه وين صفقان سفر لا اسكو خريبا جرا او شن iyo 10 qof nin inta la isku wada xiray meel lagu wada dilo hadda ku aasan baa jira balka inaga hooseeya oo safarayo awrtoodii wad hadii Soomaaliya 24 sano kadib safin weyday oo hada koos laga doonayo sidii yuhuudda ana ku yiban doonaya ninkii doonaya xanaaqo لماذا ولا كارجس جوجا يسوي رفض صفقية أنا كان الشاهد اللي يوقف صنية ما حق بعطاس ما حق معه بابا كان عن جوجنا لبت هيسته فساد كأنه أنا سكوت جيسان إنه كدولة دولة جيسان سنة وكسي درية قالوا كانوا واحد لو حكوا واحد بايلو ما تقرنيش حق الدولة ده وحكم دارة وانتبك كان لو حكمين أي ويا لو حكما معها عشور تكد جاي حداث قبل كاوض المركات معده لو يعد مركات كسوق الشو كل كذا كاردلسي وإذا رتنا معها كد جاي النوع كله وحصل لي يابله dadku hadii la rabo maanta faktuurka yar maartay warqada yar jiwanka biyaha kol loo keeno 10,000 baa lagu kordhiyay inta artayna 10,000 baa lagu qoray iska qaadanaya waa dameerka sii jeeda kii inta ma qaataan inta ugu daruun tii ma qaataan tan kale ugu daruun bal imka dhowr shay baan idin tusayaa biyaha halkay marayaan maanta dawladda xagee ka soo gashay biyaha marna waa idin sheegay waxa weeye local baa ku shaqale شابا ku shaqo u dhibanay ummadda ceelasha iskala oo waa ummadda iskale iyaguna doolar ka mirtaan waa inay amaanada ilaaliyaan oo maartay dawladdu cashuur kuma labiya kuma yeelan karto waxa ka sii daran lawrka maanta tiskarwada korkoraa la way dhiman tahay ee keelkii aan la buuxinayn markay maanta $5 ka maraysa boorama ee la yiri xagee waxana ka yimaadeen يا عشورتي ولا وكرديه هو ما هيتها عشورته ده قال لنا 300 بحيه اللي يري اما 400 جاب لنا واس 8 الى باورتو دنا واد ما قشني وضيعاني بور كسو عشورتين سو ماها جاب لي كسو عشورتين خاصان بصصكي وحي لماذا بور ما بلاده كجرتا ما هيتها ما كو بانيا دورنيبا waxan noo keenay mise dawladda waxan wadataa dawladuna way wadataa
kuwanina anu inan baan weydiiyey maalmihii ay kaambeynka ku jireen waxaan kuri meeshan maxaad ka doonaysaa local baa la yidhahdaa inankaaga iyo dhalinyartii wallahi mishaar yaroo dhib yar haddaan ka helo waxba kama rabo fiiri hadda inankaanan eel mustaqbalka waddanka inuu dhisan laga rabay muxuu ku leeyahay mishaar inaan ka helo mishaar yaroo bilaasha oonan dhib lahayn dee imankana waa wad maqasheen maalmaha waxaa dhacayay anu iyadoo goobal isku in magaalada soo galay mishalina waxba lalahaa wayba boobeen lacagtiiba la boobay taas iyada waa loo kalka oo dhalinyarta iyo mutacalimiinta waxaan ka doonayaa 5,000 oo cod hal keenno oo aan dareerina gebigeena oo kolkale inagaan meesha geynay 5,000 oo saxiixan keenno masar dad 30 milyan baan saxiix ka keennay unbay idhahdana markaas ciiday doonaan rogaan 5,000 baa la yidhi yaa shardee soo maa 5,000 inoo soo qora waxaan leenahay waan idcasille iskaga tega meesha ilaahay meel dad nooga keena waxaan u sheegayaa ragga dawladda ka jooga ee weliba dawladda dhexe la yidhaahdo gobolkani wuxuu la mid yahay gobolladu la xuquuqay min ceerigaabo ilaa iyo maarataanay halkaan joognay iminka darif ilaa darif cashuur midaysan baan waddanka ka rabnaa waxa maanta shidaalkii yare maarata saylac ka soo degay doonyaha lagu soo qaaday waxa mamnuucay ama baabiyey cashuurtii baa hadday maaratay barbara ahayd $10 ama $8 $25 uga dhigaa la yidhi tii laguma deena waxay dhahay jabuutina xaggaas ka soo baxo doonyihii waa la qaday hadda ninkani stationka jooga maarata khayr qabahani doontiisii iyo ran baa jabuuti lala tegay waa la qaatay badda iyada iska soo socota maxaa loo qaatay waa cadaawad qolonnimo oo xaggan iyo xaggaas kaga tallaabaysa marka waddankan haddaan cunaha la qabto adhow waxay ka qarxayaan oofayaasha oofaha qarxi doono meel baa fudhu laga odhan waayo waxaa la nin cunaha la qabtay ama xaar ama dhuus wana ogaataa dawladdu sidaas anu dawladda waxba kama rabo shacbigan aan la hadlayna waxba kama rabo ninka been baad sheegtay ilahinowna afilhay qanuun ku hadal baan odhanaya karnay taasina waa sidaasoo waxa weeye waar karas xun yadna ku waxla baa la yidhi ninka customkan joogaay wasaaradda amniyadda u joogaay haddii 100 baabuur oo boorama ku cashuuri lahay oo caadi u cashuuri lahaa hadday gebel intay tagaan jiwanada u yimaadaan ma isaga khasaaro qaba mise gebelaba khasaaro qabta booram iyo kana khasaaro qabadee annagu kol baa waliba dawlad lacag dawladeed waxba kuma aanaan lahayn kan meeshaas la keenay baa khasaaro qaba ha iska daayo wuxuu waddanka ku samaynayo bayloo baa la yidhahdaa waa wax gobol gaara loo garto la yidhahdo waa Catalonia nahay Basque gobolka la yidhahdo ee ka mid ah maaragtay Spain madba ee waxbu goosanaya la yidhahdo hadda walba laga sheekeeyaa ma Catalonia nahay waxa weeyaan cashuuraha waddanka hadduu barmeelku ka soo dego sayla iyo hadduu ka soo dego ceelaayo iyo hadduu ka soo dego karin iyo hadduu ka soo dego barbara waa isku mid ahaadaan cashuur dawladda cidna diidi mayso laakiin wixii cashuur tardheer yeeli kari mayno waxaan idiin sheegayaa reer booramow adduunyada qofkii damirli waxaa ma yeelayuu yidhaahdaa waxaa ma karayuu yidhaahdaa laakiin haddii dameer halkaa iska socda qof walba uu xun ku raro iska socduun isaguna kan iska sii saar uu socdaa kana ugu dar waddankan kolkaan ugu soo gebagabeeyey ee maaragtay dhinac walba ka fikiray guluf baa waddankan haysta gulufka ma taqaanaan gulufku waa colka aan waxba reebin waddankan soomaali la yidhaahdo meel kasta ha joogo jamhuuriyaddii soomaaliya la odhan jiray maanta guluf baa haysta gulufkaasina waa guluf aamusan oo loogu talaga inaan soomaalida lagu tirtiro dawladdaad iduna doondoonaysaan xamar baa dawlad laga dhisay iyo halkan baa somaliland jirta iyo puntland baa jirta iyo waxba kama jiraan caasimadaha maanta laga xukumaa waxaa ugu sokeeya Addis Ababa iyo Nairobi sii soco un dee afrikaanka markaad sii dhex qaadaed uganda sii marteed burundi marteed maaragtay sierra leone marteed halkaa marteed waxaa madmadow sii marto intii oo dhan oyna wada haysata ayaa haddana ku iclaadaana ka sii sarreeyaan goorta soomaali halkaa laga soo faqi doono dhalinyarta soo koraysaay isweydiiya annaga waba ka sii soconaaye
فسد ذلك أنت النور هنا وحوكك يا أخي وكان نوسي إيا محكمة دا حكمك قال كهي السطاف إنا يددك كل داريان حتى هدو الجنابة اللي يقع عنتو اللي اسكا صار يسان بغل جردي الشيخي كتاب كوان ويوحر ورياء من أرضي ذي كميدة ركبة جوغا ميش ورياضهم كان أبدا العذاب ميش اسكا قاضهم واحد دون تنطدك حكمه هرطب الكتاب كان اسكا داي حكم كالله حكومة يددك على داري سو انديان بير كورما اما امريكان ليجيسليشن سو ما اما انجلش بنت كور سو ما دينها ددك سايلين لو داريا ددكن كتاب القران كان لغا دايو هفرد ما تقانان هفري بوا صريحه ترادا نكاس وحي مسينا وي هفري انا وحي مسينا وي يريستي ونا مسبده وحبا يمسين هذا وحبا نين وحسيب اسك دغيا الدين هيستان اسك دغينا كتاب كنا محكمه لغما اوغلو ان ما انت لا منهاجكم وحو ليهي كل كتوق لا سو قبطو لعنت هل بويو ليهي او وا دنيدي دغبودي تاس انغا داي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبوا نكالا من الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد حالي ما دغيسانيس نيكا لا جون كيري iyo islaan mijraxno daba socotay oo Mareykan oo isaga ku xigtay iyo ma dhageysanaysan waxay soo saareen xuquuqul insaanki sanadkii 2013 caalamka hawo ku meereysanaya kuuriyada waqooyi iyo Srilanka iyo maxaa hatta Masar taamartay dadkii la xaaqay waxaan taariikhda wali ka dhigin lagu xaaqay fasaad ka dhacay ee dadkii inta la laayay garoonkii maartay raabic cadawiya haddana xagafta lagu xaalayay ee haddana dhiigoodii laga meeray meesha markii la gubay dadkii wali siisi wuxuu la yimid wax la mid ah wali fircoonna maqalay maar asxaabul xuduud kun baa u dhawaa malaha ku guraya dadka godadkii dabka ha u shiday ma sheegayaan kaasoo kale waayo waa saaxiibkood waddanna maxay ku soo qabteen dhageysta adduunyada waddanna maxay ku eedeynayaan waddankaasi inaan dhar dumar xidhay ayaa lagu xidhay waa inaan yaro dhar dumar xidhay مثلا inaan hadduu boora maanta inaan hadduu dhar dumar iska soo xidho sow inaan qaldamay sow ma sow in la edbiyo ma haddii stationka la yarageeyo ama bil la xakumo marka waxa weeyaan boora xuquuqul insaankii meel bay kaga dhacday weey waddan dhan baa leeyahay inaan yaro dhar dumar xidhay ayay xidheen sacuudigana maxaa lagu eedeynaya masalan inkastoo dee khaladaad badan leeyahay waxaa lagu eedeynaya nin bay karbaasheen nin ayay jeedaliyeen marka waa inaad caalamka la socotaan antum ayna marka halkaad khariid baan ka jirtaa marka adigu waaba la dilloobayba waayo dawlad fashilantay baa la dhahdaa dawlad fashilantay oo laga quustay marka intaan Ethiopia loo baneynayo qiil loo sameynayo iyo Kenya ayaaba inoo hadhay واتاي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ما أنت الصومالي نكم مجن قادة صلى الله ورقبت أما أميره كوفرتها النقط أما أبو مسمار كوقوي وعنا وزير ذن إياه قل ذن نواوين إيش هذا إذا ضد يرت وقتها دور كده la qayliyo ugu tagtay marka madaxda meelahaas waxaad leedahay beer bay laacayaan waxana xisaaba iyo waxana ya jeerin talagilad ayaa la isku turturaya dawladnimada Soomaaliyeed ama Soomaaliland maanta noo talay waxa weeye in Abu Musmaarka si fiican la isku turturo qabiyaaladana laga sheekeeyo صدح حسبيه ولا فديدنا لو ترتنسيه ماشي وحبا كجيرن كوي halkan ka doorna badarkiisina hadda wax isku hayaan albaab yaro kaliyo saddex qol ku dhex taalo ayay gowda isku hayaan taanihi Allah ha idra garan maayo talan hore lagu jeeday namada soo war yartihiina meesha isku gelina ragii hore odayaal bay hayaan way xishoonayeen waxay doonayaan siraadaan laakiin wax ma booboobaynin
aadkuma caayaynin hadday murmana way kala tegayeen way kala yaacayeen waayo waayeelku waa waayeelun kolley waxa weyn markaas kolkuu ummadda caalamkeedii markuu noqdo beeri qaate markuu noqdo ee bacmastarkeedii khaa'in noqdo bacmastarkeedii beriiska qurme uu keeno dawada dhacday uu keeno neefka bakte iyo gigada ka soo iibsado ee kudku hayo ama sanbabku hayo ee maaragtay beerkiisu googo-ay markuu soo qaato aw dadka ka iibinayo ee madaxdoodiina beenaala yihiin been u sheegayaan ummadda been waayo ilaahay wuxuu ugu necab yahay baa la yidhi nin xaakim ah oo beenaala ah ila xukunkiiba haystaa maxaa beenta ku kalif haddaan uu marka maamulka haysto maxaa beenta igu kalif anaaba meesha u taliya soo maa iyo shee ninka odayga ee gabadha sinaysanaya tiisiiba gaari ka laayay muxuu marka ka doori marka waxa weeye yaani maartay noocan ma waxayna haysta hadda wax wada qalliban waxa kale u qalliban waxa weeye fitanta ina haysata maanta maaha tu ubadka iyo maanta ninka maartay naftiisa fitna ku dhacdo ee xanuun ku dhaco ama dhibaato ku dhacdo waa meel soke ninka ubadkiisa wixii la gubay ee la rugmaday waa meel soke ninka xoolihiisa wixii dargam laga siiyay waa meel soke ninka xitaa la garaacay wax kasta lagu sameeyo dib kasta loo geysta waa meel soke fitnada ugu daran maad garanaysiin fitnatu diin